سائلكن كلا إنه حجة شيخنا الفاضل وحقوليه وجبر ويان ير أو واحد ثلاث بنمرق سنة هاي واحد الشيخ وحن كنا على هاي وضن كان قربها أيوه سي بيتري هو يا أب وضن كي بيتشوغان ويس قبان بيتري أب واحد تروح أوليه هي حاس كله لبض بس سجارة أيان أدق عليه بيتري مرك عرورتي كله ولا لها يوويني hooyay la joogaanoo guriga weyn bay joogaan bay tiri aabbe iyo minyaraduna guri kale degan yihiin waxay tiri hooyo wiilashaa kale iyo reerkaa kale ayay aad ugu mashquushaa aabbana waxaad moodaa in la dayacay bay tiri mararka qaarkood way weydiisaayo maxaad u dirtay ayay tidhaahdaan waxay tiri haddii ay ogaatay inaan lacaga u diray way soo wacdaa markiiba aniga way i qabsataa aniguna waxaan ka baqayaa bay tiri wuxuu waa hooye in habaarkeedu uu igu dhaco aabahayna inaan gooyo mar raba bay tiri oo inaan dhaqaaleeyo ayaan rabaa waxay tiri aaba mar walba wuxuu yidhaa hooyadaa dhegayso oo iyada ka ducayso oo aniga mataqaanaaye ilaahay baa ila jira mataqaana saasuu igula taliyaa bay tiri sheekh maxaad igula talin lahayd maxaan sameeyaa bay tiri arrintana iga murugsan sidee baan hooye uga dhaadhiciyaa bay tiri sidoo aad ii dhashay buu aaba ii dhalaye maxaan ku idhaahdayey slow down bay tiri sheekh falyatafadal mashkuuran wa maajuura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد horta gabadhan ammaan fiican wanaagsan ayaan u hayaa runtii oy mudan tahay iyadoo tiri waxaan ahay gabadh yar ayaa waxay aad ooga fikiraysaa waalidkii dhalay oo aabbiyo hooye ka kooban oo marna aabbihii uu xaas kale iyo carruur kale leeyahay oo xaas kale u dhashay masalan dhinacna hooyadeed iyo carruur kale ay joogaan haddanana hooyadeed ay bareshar weyn ay ku hayso ayna doonayso inay aabbaheedna ka ducaysato hooyadeedna aynan inkaarin horta hanii'an laki baarinimada intaa dhan adigoo waddan gaalo joogo oo xaalkaagaba ilaahay og yahay saad intan yarta ah ku keentay ilaahay ha kuu barakeeye haddanana walwalka intaa dhan inuu ku haysto ila aniga waad iga fiican tahay aad iyo aad jazaaki allaahu khayran amaa maxaan sameeyaa hooyadaa raalli geli hooyadaa u dir waxa aad u diray karto aabbahaana raalli geli oo u dir wixii aad u diri karto sida haddaba aad yeesho jazaaki allaahu khayran amaa su-aasha arrinta keentay oo ah hooye ayaa waxay leedahay aabbaha maxaad u dirtay markaan u sheeganaa xoogaa halkaa raalli kama noqonayso hooyadaa arrinkaasi inay samayso kuma habboona tan hadduu aabba dulmi galay oo uusan u xaqsooraynin hooyada iyo aayada ama eedada dadka qaarkood siday dhahaanba taasi waa wax asaga u taalla aabbo cadligiisa iyo cadaalad la-aantiisa aakhare asagaa laga weydiin amaa gabar yahay ka aabbaha iyo hooyada mid walba xaq bay kugu leeyihiin hadba weliba waxaa xoolaha aad u badinaysaa midkay baahidu ay u badan tahay ayaad weliba xoolaha u badinaysaa hadday hooye iska dhaqan tahay oo maxaa la yidhahdaa carruur kaloo isku bah ah isku bahtiin ay dibadaha joogaan ay hooyo wax u diraan laakiin aabba aynan u dirin waa inaad aabba u badisaa hadday sida kala tahayna waa inaad hooye u badisaa hadba labada qolo aabbaha iyo hooyada midka baahida ziyaada a qaba haddiise aad ay noloshooda isku dhowdahay maxaa la yidhahdaa inaad kanna wax u dirto kan tan gabadha hooyana wax u dirto waa wax kuu bannaan laakiin hooyo xaq oo ma leh diin ahaan sharci ahaan waaqic ahaan midna xaq ooma leh inay ku dhahdo aabbaha maxaad waxaa ugu diraysaa waad u diri caasina kuma noqonaysid laba midba waad samayn kartaa adigoo hooyadaa ilaalinaya waabaad ka qarin kartaa wixii aad maxaa la yidhahdaa aabbaha aad u dirayso maba ogaanaysa hooyada haddii kalena si saraaxa ugu sheego haddaba hooyay aabbahay wuu i dhalay waa aabbahay anaana aakharadayda iibsanaya oo janno ku iibsanaya cadaab iyo ciqaabna ka baqaya adigu hooye ahaan inta ay awoodaydu tahay iyo xuquuqdaada iigu soo duco waad helaysaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala amaa aabbahay wuu i dhalay
sidaad adiguba ii dhashay weliba asagaaba adig ku shukaansaday oo hadduuse adig ku soo shukaansadeen maba aana dhasheen baaba laga yaabaa saa daraaddeed asagaaba xoolihii bixiyey shukaansiga lahaa xudxudashada lahaa kuu fadhiistay adiga dhan baba kuu soo fadhiistay lagu siiyey meherka dhigay maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahda sadaaqi ku siiyey reerkii la xidhiiday aabbahay inaan adduunyada imaado marka koobaad asagaaba sabab u ahaa marka labaadna adigaaba sababta labaad ahaa marka hooyada iyo aabbaha labaduba raalli geli hooyadaana si wanaagsan oola hadal haddaad aragto hooyada inay adag tahayna mada inaad u sheegtaba qasab kuguma ahee aabbaha waxaad u diri karto u dir biidnillaahi tabaaraka wa tacaala baarinimada intaa dhanna ilaahay ha kuu barakeeyo haddaadan reer lahayn ilaahay reer wanaagsan tabaaraka wa tacaala oo zawj saalix ah oo arrintana kugu garab istaaga adiguna humuumta iyo welwelka kula qaybsada ayaan ilaahay kuu weydiinayaa tabaaraka wa tacaala haddaad reer leedahayna ilaahay ha kuu ziyaadiyo baarinimadaadana ilaahay adduunyadana cizo iyo sharaf iyo usra saciida ha kugu siiyo aakharana ilaahay jannaha kugu geliyo wallaahu aclam